بسم الله الرحمن الرحيم وبسلامة سلام كدب waxaan rabaa maanta in eray murtiyo Soomaaliyeed aan ka wada hadalno maamada waxay dhaheedaa aflagaado colaadna wax kama tarto nabadna way ka geysaa markii igu horeeyay ee aan mahmadan maqlo waxay ahayd bari anoo jooga Liibiya iyo nala xiray xabsi Liibiya ku yaala nala geeyay xabsiga waxa ku jira Soomaali badan iyo Eritrean iyo Suudaan dadka inta badan waxa loo soo xiray waxay ahaayeen adoo waa taqaanaa dad kulligood raba inay tahriibaan xabsigii dadka aan isku barana waxa kamid ahaa wiil Maxamed la yiraahdo maxamed wuxuu aad u isticmaali jiray kaniinigan la yiraahdo waxaan madax xanuunka roona Tylenolka ama ibuprofenka waxa jirta marka qola IM la yiraahdo oo maalinta Khamiista timaado oo qofka xanuunsan soo yara wareysanayso kaniinina soo siinayso maxamed kii marka uu ku badbata Khamiis kasta gacanta u taagtaa soo helay ibuprofenkaas markaan maxamed isbarno marka wuxuu yirniyo adaa cusub maanta haday qolada IM ka timaado gacanta taago oo adiga soo ana xanuunsan dheh xagee laga hayaa dil guraana madaxa dheh si aad igu soo qaado Tylenol marka wiilka saaxiibaan noqonay ay haaneen gacanta aan taagto maalinka Khamiista markay yimaadeen waxaan u tagnay qoladii xaliigay qol ay fadhiyaan qof dhakhtar iska dhigay oo ku wareysanaa marka xagee laga hayaa madaxa xanuunaa is box meeshaan Tylenol iga soo bixisa markaan bixi maaga liirmay interview aad mareeda qof ku wareysana waxa la iigeeyay nin magaciisa igu sheegay Francesco oo Talyaani ah Francesco bis uu i wareystay wuxuu yiri ka waran noloshiina xabsiga waasay waxaan uga sheekay marka dhibaato badan ee xabsiga jirto waxaan yirnay waa nala garaaca dadka xanuunsan lama daweeyo shaqo inta la wada lagu soo shaqeystaa la soo aad u dhibaato badan uga sheekay wuxuu yiri biri toolo jimcaha yiri xabsiga waxa soo booqanayo yiri midowga Yurub baarlamaankiisa oo markaas uu madaxweyne ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka marka wuxuu yiri markay ka meesha ay soo galaan yiri xerada aad ku xirantihiin aniga waan soo wadaa waxaan keenayaa qolka adinka aad ku jirtaan markaan ku keenay la yiraahdo yaa hadlaayo gacanta taago waxaan aan adiga ii sheegayso yiri ayagu sheeg okay andrew adiga qolka xabsigan ku soo noqdo Soomaalida aan soo noqdo waxaan nimeeyahay biri toolo midowga Yurub soo socdo markuu noo yimaado ninka Talyaanigan waa la soo ballamay marka waxaan rabaa inaan dhibteena u sheego adii dadkii waxay dhahan wallahi fikir fiican waay kuwa wada tacbaan ahaa lir kuwana dharka ka siibeena waa u sheegnaa dhibtana lagu haayo gaaya sidii adu maray cishii camal ay too la siisay seexanaya iyo wiil dadka xiran kamid ah Cabdicasiis la yiraahdo oo dabeecad ahaan dadku ma bahadlaba habeenkii inta madaxa dhulka dhigto lugaha kor u taagto oo sidii ay u qayliya oo waxa la siraaniga waxba ka qalban ninkii ay yeeray wuxuu yiri baraada balkaalay aanu tagin wuxuu yiri niyahow caaw mahmahan ku sheegayo wuxuu yiri mahmah in ku sheegayo waxay tabaamad wuxuu yiri aflagaado colaad wax kama tarto nabadna way ka geysaa waxaan ula jeedaa yiri hadii maanta biri markay yimaadaan yiri gaaladan midowga Yurub ee aad dhibaatada iyo ceebta nimanka ay nagu hayaan aad u sheegto yiri markay tagaan cid noo harayso waa Liibiyaan yiri marka wuxuu yiri niyahow tan ugu aflagaadeeda badhana gelin yaa habeenka xogaa waa yara fakiray adi maalinka dhan oo fakiraya subaxii waaga markuu bariyay irideen la soo furay waxa soo galeen midowga Yurub wasiiro iyo xildhibaano qolyooyin kaamirooyin wato idaacadaha caalamka Al Jazeera CNN BBC telefishinna badan oo magac ahaan markaas aan aqaan iyo soo wada galeen gabar Lubnaanees ay wataan oo turjumaan u ah waxay dhaheen hal qof oo Carabi ku hadli yaqaan oo aan wareysanaan u baahana dhalinyaradina xalay waxay ogaayeen moogtaa in aniga aan ku tashanay inaan anigu hadlo waxaan Cabdirasaaq aan noo hadlaayo waan istaagay gabadhii markay waxay tir su'aalaha idin weydiina waxay tir maxaad u xiran tihiin waxaan yiri saddex siba waa u xiranahay qolo waxay u xiran tahay ayagoo dal shisheeya si sharci darro ah ku soo galaya yaa la soo xiranay qolana naftooda ayagoo haligaayo badda isku shubaayo alla soo qabtaan yiri qolana ayagoo magaalada iska socda la soo qabtaan yiri
markaas waxaan ka dhigaa in yacni wax dhibaataa badan aysan jirin waxay tiri waayahay nolosha xabsiga ka waran waxaan idhi nin yahow inteenaan maanta haddiina la yidhaha waa lidindayna ee xabsiga ka baxa in magaalada naloo dayo qaab aan u noolaana xitaa ma naqaano sababta waxaan idhi xabsigaan waxaan ku haysanaa 3 cunto qada quraacasho waxaan ku haysanaa waxbarasho waxaan ku haysanaa shaqo oo shaqaana la siiyaa waa soo shaqaysanaa marka waa runtii shaqo way jirtaa laakiin shaqadu waxa waaye inta la wada lagu soo shaqeeyaa lagu soo dilaa adoo tacbaana lagu soo celina marka waxaan idhi xabsigaan nolol fiican ayaan ku haysanaa waxaan idhi hogaamiyaha kacaanka ee Liibiya Colonel Muammar al-Gaddafi muwaadinka Soomaaliga wuxuu u yaqaanaa idhi muwaadinka labaad ee Liibiya marka Soomaali haddaan nahay aad ugu sharfanaa Liibiya wax dhibaa ma qabno marka waxaan idhi aadaan ugu mahadcelinaa saraakiisha meeshaan nagu haysa aad ay noo dhaqaalayaan anoo u jeedaa marka waxaa isbedelay wejigii saraakiisha Liibiyaanka isdhahay ninkaan ama balaayo sheega farxad qoladii Yurubna waa yaabeenba nin xabsiga amaanaya dhahay wax dhibaa ma qabno aydan intaasaan u soconay waan baxayna waxaan intaadan bixin su'aal mid weydiiya waxaan adinku maxaad ahaydeen maxaad naga soo doonteen wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka nin markaas ay jawaabay wuxuu waxaan yiraahday wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka waxaan ninka hadda hogaaminayo qoladan reer Yurub ee xabsigan soo booqatay waxaan meeshan u nimid oo yiri in aan hubino yiri budget aan ku bixino dadka soo tahriibay dhaqaale aan ugu talagalnay oo si loogu badbaadiyo marka hadda qaabka aad noogu jawaabto yiri waxaan ba dareemeynaa in dhaqaalihi aan Liibiya ku siiyeen inay wax fiican ku qabanayaan waana mahadsantahay wax kale oo jeceshay weydiilay ma jirto waxaan yiri wax kale ma haye waxaad maanta waa maalinka ugu horeeyay inay qof Jarmala oo soo hor istaago marka taana waxay ii tahay mudnaan gooniya aan ku mahadsantahay adoo ay naga tagaan Soomaalidu waxay isleeyihiin ninka ayta waxba ku ballanteynay xagoo amaan uga sheekay waxaan 5 daqiiqo dhameynaa mudiir nuur al dhihi jirnay kama sheestay iyo saraakiishiisa socdaan soo wada noqdeen Cabdirasaaq weynak waa kana waxaa la yiri maanta waxaad rabto dalbo waa ku sameeynaa waxaan irshana marka dhimar rabtay oo tacbaan ahaayeen marka xabsi ku jirnaa horta waxaan irshantaan dhimar rabtay meesha ka sii daado shantii loo yir guriina ma taqaanaan irda ka bax maxaa kala rabtaa waxaan inteena nada ila maanta dambi uma xirinay wuxuu rabtaa dawladda u xirantiin hal mar irideeda kama furi karo laakiin habeen kasta shanaan deynaa kulligii meesha waa idinka deynaa ee balkaala adii koon inta ila buuxo adigana irda ka bax iska bax marka horta meesha aan u socdo ma ahan xabsigaas inaan ka sheekeyno waxaan u socdo waxay tahay aflagaado colaadna wax kama tarto nabadna way ka geysaa inaha dulucda ku jirtaa waxay tahay maanta markaad qof caaydo colaadii labadiina idinka dhaxaysay waxba uma aadan dhibin nabadda idin dhaxaysayna waa dhumisay marka maanta Soomaali hadana waxaan u badanay qof kasta dad u aflagaadeyna markasta oo wax aflagaadeydana adna nabad waad ka fogaanay qofkii aad aflagaadeydana dib muuqdood u geysan malahan marka waxaan baraarujinaynaa wanaaga iyo quruxda bisle inaad afkaaga bartoodan dadka aadan cayn kii ku caayana aad u sabarto ma mahadsantiin fadlan shargaray hada shargaraysan بريت 10 في عمد يليسان هذا شرقري هديك انا قالت واحد انا يدو شيغي هدي هذا شرقري كل شرقري هذا هدي لك في دماغي شرقري كل all of you now كله في بدنك عرف كيف انحرنا يا نور هدي لك وعن بس سو دوبن الا وا بين الا صاحب بان كلنا هي بين ور شرقري يلا شرقري